asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhowaada mowduuceena maanta haddaad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar mowduucana haddaad ka hesha like noogu dhufo oo saaxiibadaada kale sii gaadhsii oo sii sheergare saaxiibayaal waad mahadsantihiin ee kuna macnaa ciyaartoy caan ah oo xaaskiisa bil walba magaalo joog ahaan u siiya $100,000 ciyaaryahankaas miyaad taqaanaa talow waa kuma haddaba mowduuceena ayaan maanta ku eegaynaa ee ku soo dhowow mowduuceenoo dhammaystiran fadlan haddii aad channelkeenna hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo 35 jir ah uu xaaskiisa Georgina Rodriguez oo iyaduna 60 sano jir ah lacagtaas u siiyo gun ahaan si ay ugu noolaato nolol heer sare ah Cristiano Ronaldo ayaa sanadkiiba mushaharaan u qaata lacag dhan $28 milyan iyo Georgina oo u dhalatay dalka Spain ayaa gabar 2 sano jir ah u haysa Cristiano Ronaldo taas oo lagu magacaabo Alana Martina hase yeeshee Georgina ayaa Cristiano Ronaldo waxay la korisaa 3 caruur oo kale oo u dhalay waxauna wargeyska ku sheegay inta badan in gabadhaas ay ku sugan tahay guriga halkaas oo ay ku koriso kuna xanaaneyso caruurta uu dhalay Cristiano Ronaldo iyo xaaskiisa ayaa inta badan la arkaa iyagoo ku nool nolol heer sare ah waxayna u dalxiis tagaan meelaha ugu quruxda badan caalamka iyagoo qaata diyaarad u khaas ah dhowaan ayay ahayd markii Georgina ay Cristiano Ronaldo siisay hadiyad baabuur oo qaali ah kaas oo la iibiyay lacag dhan $120,000 Ronaldo ayaa xilligaas u dabaaldegayay sanad guuradii 35aad ee ka soo wareegtay dhalashadiisa Georgina oo taageerayaal aad u badan oo gaaraya 17 milyan ku leh barteeda Instagram-ka ayaa sidoo kale waxay dhaqaale ka samaysaa shirkadaha xaysiinta u samayso waxay aad ugu fiican tahay fashion style waaba halkii uu Ronaldo ku arkay xaaska Ronaldo ayuu wargeysku sheegay inay ku soo barbaartay tuulo fog oo ku taala waqooyiga dalka Spain halkaas ay kula noolayd aabaheed Giorgio oo isaguna ahaa ciyaartoy u dhashay dalka Argentina iyo hooyadeed oo Spanish ahayd Georgina ayaa markii ay yarayd waxay aad u jeclayd inay barato ciyaaraha qoobka ciyaarka balse waalidkeeda xilligaas ma aanay awoodin inay u diraan iskoolka lagu barto ciyaarahaas waxayna markii dambe ay iska noqotay Georgina gabar dharka xayeysiisa waagii hore waxay ku nooleed nolol ka duwan tan ay hadda ku nooshahay waxayna kabalyeri ka ahayd maqaayad markii ay da'deedu soo gaadhay 19 sano waxayna u soo wareegtay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska halkaas ay ka ahayd jaariyad saacadiiba ku shaqeysa $10 hase yeeshee markii dambe waxay dib ugu laabatay dalka Spain haddaba qisada ay isku guursadeen maxay tahay ama maxay ku saaxiibeen haddaba waxay Cristiano Ronaldo isku barteen dukaanka caanka ah ee uu Ronaldo ka adeegto oo inta badan halkaas ayuu ka adeegtaa xiriirkooduna halkaas ayuu ka bilaabmay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mowduuceeni cajiibka ahaa ciyaartooyga caanka ah ee Cristiano Ronaldo oo $100,000 bil walba gun ahaan u siiya xaaskiisa talow anagu maadaama nahay Soomaali xaasaska ay qabaan ragga Soomaalidu gun ahaan bishii imse u siiyaan waa su'aalan hadda ka jawaabi karin laakiinse u baahan daraasaad badan waayo wax walba markaad daraasaad ku samayso ayaad ogaanaysaa balse Soomaalida kuwa dalka hooyo jooga iyo kuwa dalka dibadiisa jooga farqi weyn ayaa u dhaxeeya waayo kuwa dalka jooga biilka ayay u soo dhiciyaan oo lacag guna ah ma yaqaanaan laakiinse kuwa dibadaha jooga maadaama ay nolol aad isaga fiican ku nool yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mowduuceeni maanta oo aan kaga hadlayna Cristiano Ronaldo iyo xaaskiisa intaan ku kulmi doono mowduuca la mid ah waa walaalkin Cabdiweli Nadaaro idin leh saasi fi amaan illah